wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta wasaaraddaasi ayaa ka warbixiyay khasaarihii roobabkii ka da'ay gobolada bari ee Soomaaliland isagoo sheegay wasiirku in la saadaalinayo in roobab mahiigaan ay ka da'aan guud ahaan gobolada Soomaaliland waxaana wasiirku xusay in roob mahiigaan oo ilaa saaka uu ku da'ay gobolka Selal kaas oo khasaare gaarsiiyay deegaanada hoos yimaaday iyo gaar ahaan degmada Saylac waxaana wasiirka kulankan ku helinayay maamulka gobolka Murudijeex gudoomiyaha gobolka Selal maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa ahna kusimaha duqa caasimadda Hargeysa ugu horreyn waxa uu wasiirku ka hadlay roobabkii ka da'ay gobolada bariga Soomaaliland iyo khasaarihii ay geysteen inaynu weli ku guda jirno xilligii roobabka guga tusaskii dambe ama dabayaaqada iminka aynu joogno ama bartamaha gugaynu iminka joogno Allah inoo siyaadiyay inay roobabkii iyo roobab laxaad leh ay da'een roobabkii burca ka da'ay biriishadii qaar buu waxyeelay injineeradii waliba gaar ahaan injineerkii Faarax Xuseen oo biriishada intooda badan dhisay meeyarkii magaalada Burco qolo odayaashii kale ee la joogay ee maamulka degmada iyo gobolka iyo odayadii maxaan ku dhahdaay ahaa hawlaha nabadgelyada iyo hawlaha horumarinta kala shaqeynayay in khasaare badan dhacay bay sheegeen in weli dooxi uu rugmanayo oo aanay garanaynin biriishada gunteedii waxa ay u baahan yihiin in gurmad laga qabto wasiirku intuu ku guda jiray shirkiisan jaraa'id waxa uu sheegay in xilligan lagu guda jiro ay roobab mahiigaan ay ku da'ayeen gobolka Selal kaas oo khasaare sababay imika saacadan aynu hadlayno hadda barasaabkii Selal baa nala fadhiyay waxa la soo sheegay in magaaladii Saylac imika ay go'doon tahay oo roobkii ilaa iyo maanta uu hayay eriyada xeebtoo dhanna uu qayo saadaashuna ay sheegayso in roobab badan ay daayeen ilaa iyo maxaan ku dhahdaa wiigan horaantiisa sida la ashligeed lagama maarmaan waxa ah inaynu taxadirkeena yeelano taxadir in badan la yeeshaa loo baahan yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed waxa uu shacabka Soomaaliland ku wargeliyay inay ka fogaadaan meelaha biyo mareennada ah isagoo xusay in la saadaalinayo in roobab mahiigaan ay ka da'aan Soomaaliland hadii jeer waxa dhacda in meelaha dooxa qarkiisa iyo meelaha biyo mareennada ah in dadka qaar ay caadaysteen in ay degaan oo ay qaarna hoyna u tahay qaarna ay meel ganacsi u tahay dabadeedna roob kasta marka uu soo doo alaabtana uu qaado dadkana uu dhibaateeyo doorkii dhawatay intii khasaare nagu dhacday weyna kii ogeen dadka waxaan farayaa waxa laga maarmaana in laga taxadiro kow meelaha maxaan ku dhahdaay biyo mareenka ah laagaha biyuhu ay maraan dooxa qarkiisa in intaba laga fogaado ayay u baahan tahay wasiirku waxa kale oo fariin u diray wadayaasha gaadiidka xilliga roobku u da'ayo in ay haligin ummadda ay sidaan isla markaasina aanay dooxyada ay biyuhu marayaan aanay gelin kale oo lagama maarmaana inaan digniin u gudbino culus gaadiidleyda isaga goosta gobolada dalka ee marar fara badan oo khasaare fara badan oo naf iyo maal leh ay ka dhaceen biriijyada aan lahayn waxaan leeyahay dooxyada aan lahayn biriijyada inta badan waxaa sababa iyadoo daad xoog leh dooxyada marayaan inay dareewaliintu ka dhaga adeygaan ciidamada ilaalinaya biriijyada mararka qaarkoodna ay khasbaan sidaa la ashligeed si aynu taxadir u yeelano waxaan faraynaa ugana digaynaa dhammaan nimanka lagu yiraahdo dareewaliinta wadayaasha gaadiidka wada waaweyn iyo yaryar in ay ka joogsadaan dooxyada oo muddo yarba ay dooxyadu ku go'ayaan ama biyahoodu isku dhimayaan ay ka daayaan mahlakada ay dadka shicibka ay gelinayaan dareewaliinta waxaan leenahay mas'uul hal noqdo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed waxa uu fariin adag u diray dawladaha hoose ee dalka gaar ahaan dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo shirkadaha cagaf-cagafyada in ay si wada jir ah uga howlgalaan roobabka la saadaalinayo in ay ka da'aan Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa iyo nawaaxigeeda
waxaan kaloo farayaa dowladaha hoose dhammaantood iyo maamulada goboladaba in marka ugu horeeya standby la galo la diyaar garoobo shaqaalaha dowladaha hoose iyo goboladu inay diyaar garoobaan meelaha biyo mareenada ah in la xaqiijiyo in dadka laga raro dadka baayac mushtarigihi meelaha laagaha inay iyagu ama isiraahdaan nidaamiya oo dabadeedna ay biyihii cidhiidhyamaan oo ay dadkii ay waxyeeleeyaan meelaha awdan oo dhanna la furo waxaan kaloo ka codsanaynaa oo ayaantii dhaweyto xaqiiqada rasmiga ah si wanaagsan u shaqeeyey iskaashatada ku bahawday cagafyada maamulkoodii guddoonkoodii xogayahoodii odayadoodii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maantana waan wada hadalay goboladoo dhanna waxaan leenahay sidoo kale macadaadka ha kaashadaan maxaan ku dhahdaye gaarka loo leeyahay qaadir cabdullaahi nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.